marka hore waxaa laga filaa inuu ra-iisul wasaare cusub soo magacaabo ama wiilka hadda uu sii dhiibtaba oo u dhamaystiro kaasaaba ka fiicnaan lahayba si cusub nooga soo gabagabowdaba oo markay madaxa isla gashay laakiin kulli waa inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo xukuumadda hadda joogta wuxuu sii jooga iyo wixii qaadanaha laga qaato wixii kala gudanaha lagu daro kadibna hadee kulli caawa haddii laga bilaabo golaha shacbiga soomaaliya 5 bilood u hartay madaxweyne farmaajona waxaa u hartay 6 bilood iyo 6 cisho u hartay asagana waxaa laga rabaa inuu intaas ku qabto golihii shacbiga ku keeno doorasho ku qabto dabcan sida iska caadiga asigu wuxuu meesha la soo taagan yahay hala qabto doorasho qof sharciyada laakiin ilmaha 5 sano jiro Soomaaliyeed waa garan karaan wadankan hadda inaan hal qof yar oo laga qaban karin asagana uu yahay wuxuu u jeedaa macnaha markuu hal qof yar oo leeyahay wuxuu u jeedaa macnaha waqti hal lagu daro marka waqtigaas uu raadina maana hadda hadii wax kasta la siiyana wuxuu qaban karaa mar 4 sano hadda u dhamaan 4 sano wuxuu ku qabanayaan laga sano kuma qabanayo marka hore hada rijal laga qabo la dhahayo waxbuu qabanaa dadka iska dumarka carruurta badan ay isaga jadbaysnaayeen hadda dumarka carruurta ogaadeen wuxuu qaban karaa inaysan jirin wuxuu doonayaa meesha inuu iska sii joogo sidaas uu rabaa marka kulli waxay hore doonin in si uu loo qasbo la ogoleysiiyo in uu ogolaado doorashada inay fiican tahay ma aha laakiin waxay ka fiican tahay inuu inta asigu meesha iska joogo waqtiga dhammaan wadanku qalalaasho iyo mashaakil galo waxaa ka fiican doorashada wax fiican ma laakiin waxay ka fiican tahay joogitaanka farmaajo ka fiican tahay inuu farmaajo joogo oo qas iyo qaalaas waddanka galo iyo in doorashada dadba inta la galo si nabada lagu gudbo ayaa waxaa fiican doorashada banaa ka fiican joogitaanka farmaajo saasaa loo jeedaa marka meesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed isku raacsan yihiin asaga iyo dhowr nin oo dhalinyaro oo يعني بعد NGO عمل إشراف شقيستانا ملها أبو إني سفيج وأنا ربان مركا. كل واحد جينا ملحنا مع القبلات يدا أنت واحد قرأتنا إني كدي دوران دي دوران والسودان الصومالي مثلا تسع حضور علىها صح دي دوران جينا. دكتور حسن واحد شكت إن برلمان وقت يركبون وهاي أو 4 بال أما 5 بال وحده هي ساعة وقت جودا. حكومة دولارية وحال سوق إن حكومة عصب لا دسا رزارها عصب اللي كين دونه حكومة دلسين دونه أما صار دس دونه وقت أنت اللي هايستان محيسان كمان كراد ما موقتها ما يسوي إسك عادي هل بالواية هل مركز واحد جينا إنه هذا بالسوق طبعا واحد أتكلم إنه قف معنا الشهر لأنه بذكر معناها مرة إني لا شك يعني مركز راح ونجرب كلو أشياء متقانة إسك محوس وكيل دونه ما قدر كذي برلمان قال جينا عاد وحنا وين برلمان كويس أنا ماشي أنا وحده وينه هذا بدك الصومالية برلمان كويس كيسان ماشي مجوان برلمان كذا شيء المقطع برلمان كنفتي يسوي عنه سال أموره أسيق النفس بيسا أو سكنه هذا حال كذا إلى وجهه مال أي استعملها دول النمذا ترى النمذا الصومالي أنا دولا شعبي يا dadka Soomaaliyeed mas'uul ah laakiin si uu dhaqmayaan oo hadda ay barad ay khayr uga dhaqmaan khayr macnaa inuu nifiicanahay maaha laakiin haddana inay khayr xilka ka qaadaan waa arrin inay si xun u dhaqmaan oo sida ay u dhaqmaan waa arrin kale oo khalad waxa la rabay khayr xilka ka qaadeen laakiin inay ilaaliyaan dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacbiga inay ilaaliyaan waxaa loo baahnaa khayr inay موشين لك سوقرو موشين كلاكينو برلمان كلاجيو لقدودو هدي الله بعض أشغل لوقو وش دفاعو هدي لقو قنعواي مركز الدرب برلمان كلاكدودو والله هي عد أنجلينو مركز عد لجليو ساسو كان الله بعض لكن ممكن برسل هذا ماشي تجي تسكو أقولها عندك تاجة دجي عندنا كو دي تاجة دجي يا مسد دجي laba daqiiqo iyo 25 senti ee second ayuu ku dhacay dawladdu waa laga laabtay waa inuu dhahay madaxweynaha wax ka soo socday marka waa u jeedaa gudoomiyaha golaha shacbiga mid ka dhaxaysta inuu naadin min asaga nafsidiisa sharciga ilaalay aynan ahayn oo golihii shacbiga u dhaawaca
لكن كل شعب قال لفتقود يعني حتى وعي بنقدين بقى اللي صار أموره ويا لكن دكتور حسن أريد حكومة دا وقت هاري ضد بدن وحليه مدحونه أدو حاري برلمان كوي كوتا غيريا المدة كردين لقيا أبا هال سنة أما حودك ما إن أي كدر سدان صار دعي كرتو ما أصل أنا بعد ما كشف مدحونه فرماجون ألقى في أن بركان دورش أن كتبها macnaheedu waxay ka dhigan tahay waqtiga lagu daro marka ma garanayo ama uma malaynayo hadda in laga yeeri doono waqtiga loogu daro sababta waxa lagu dirayo sababta lagu dirayaan badjiriba sababta haduu wax qabanahay oo dhigay xataa walaha iga qabya sida xas sheekh xataa Allah ka dhigay xas sheekh ayibid oo dhaa qabya walaha iga qabya aan qabya dhameystiro waa laga diiday farmaajo qabya xataa ma haysto qabya oo dhameystiro xataa ma haysto marka golaha shacbiga نبقى سوشيال ميديا قد ينكروا ده قد أنا مستر ولا جديد لمن قد حتى هيسن سالوا سو ما سجل جلب هم الشيخ ما جم قولي لحلنا هم ليس عشان هو قولوا الشيء تهم منه سمارة كده هيا بس كسومالي الله وتلاقي اللي بعديه نفط هذا اللي هو إلانيو مال هذا اللي هو إلانيو شرفت هذا اللي هو إلانيو نمسك نحفظ ديال بس كسومالي ده كمان بس كسومالي ماشي في حينا وعنين كشقيه بس كسومالي وشقيه من ما تكفر دي بنيس في الصومال دم كمال يعني ولاد كان وقت يستوى معدو بيد فبراير أدوك جارو ما شو هذا أما صومالي هذا أما ضعف الأجوج أما ضعف هذا أما قدر ما شو هذه ومد إنه كروري جواي ومد رأيه بدأ درته go-aanka beesha caalamka haddaan eegno maanta dabcan beesha caalamka go-aan qaraar ay soo saareen oo ku aadan in doorasho hal dhinac la aqbali doonin oo dawladuna cadaadis lagu saarayo ma moodaa in durba cadaadiska beesha caalamka uu bilowday haddaba waa ka sabab dawladda Soomaaliya waa u jeediyada isku filnayno bilaaw oo muxuusa waaye oo la kaalmeeyo xafiiska madaxweyne farmaajo furhiisa iyo aygaarkiisa ciidan Ugandesa waardiyo meesha xalanti ciid qurumaa ka dhacaysa ama golaha amniga adduunka wafdi ka socda iyo maxaa ku dhaw wakiil ka socda jooga dadka Soomaali inayna isku filnayno dawlad ahayna wax ka sakari waa u yahay toddobayl ma qaan sagaal labaatan adoodo UN ka xalanad degan oo mid ay ka shaqeysa badda oo mid ay ka shaqeysa dhirta oo mid ay ka shaqeysa beeraha mid caafimaadka dadka caafimaadka xoolaha waxbarashada marka Soomaaliya waa dawlad iska yar waa ugu inta yar dhagax xataa ku risay xataa lama xukumo madaxtooyada la waardiye dekada la waardiye dhabarka la waardiye marka beesha caalamku intaas xoolo ku bixinaysa dada ku dhintay marta marka wixii yar oo ay soo dhoodhoobtay inay dumaano halnin ama laban ama danaystayaal inay ku cayaaraan oo dibiyaan oo malaayiin lacag ay meesha ku qasaaraan oo haddana Soomaaliya meel qaabdaran ay ku dhamaato lama ogolaan karo laakiin dadkan waxaa la rabaa oo hadda shaqada haysto balaaska dhigaya inay ogaadaan nin oo kilometer 0 iyo kilometer 4 intuu dhaxaysa ku dhax jira dadka 4 kilometer oo haddana ku dhaay dawladnimo dadka ku dulmaya oo dadka ku dilay oo ku dhacay oo ku xooday oo ku qaribay qofka yeelay ma jira marka waxaas la dawlad lama dhaw calaaytaal marka beesha caalamka idoo la gaariyay dadka Soomaaliyeed sababada la rabo inay dhaaf waxaan ma shaqeynayaan dhaafina loo baahay madara way cadaadiska laakiin beesha caalamka maxay ka bedeli kartaa siyaasadda iyo hadda guuxa soconaya muxuu isbedel ku keeni karaa caalamka maxay beddeliyay ciidanka Soomaaliyeed mushaarkooda beesha caalamka bixisa budgetka Soomaaliya ciidanka bixiya madaxweyne farmaajo beesha caalamka wardiisa ma ogido dikada muqdisho cashuurta laga soo qaado umada lagu dhibaayo beesha caalamka wardiisa ma ogido reerborkan lacagta laga soo qaado umada lagu dhibaayo ciidamada lagu dalbaayo gado oo dadka Soomaali lagu kicinayo ku baydhabo lagu qaado dadka lagu dilayo dhuusama reeb lagu tago dadka lagu dilayo ciidamadaas la daldalayo hubka iyo waxa inta lagu sido lacagaha waxaa laga soo qaado hayo dikadani reerborkan muqdisho ma ogido dikadani reerborkan muqdisho jamciyadda qurumaa ka dhacaysa ciidamo ka socda waardiye ka hay adduunka dhamaan meesha gacanta ka hay dhacaya caawa hadii oo madaxtooyada Soomaaliya ay ka tagaan ciidamada Ugandeska I don't know what will happen by the way beesha caalamku meesha waa joogtaa xoolaana ka galay waana in la dhigeystaa warkeeda laakiin waa in dadka uga dalac garta ay yihiin oo sida hadda koor carruurta nimada camal u dhaqmi jira ay soo dhaqmino aysan mataqaana ay fahmaan siyaasadda caalamka iyo say u shaqeyso marka haddana saan ognahay dadka Soomaaliyeed hadda ku hortaagan maba yaqaanaan meesha siyaasadda caalamka say u shaqeysa lama fahamsano
way laakiin maxaa dhici kara marka haddii go-aankii beesha caalamka laga dhiga adeego oo dowladuna ay tiraahdo hal sanaan ku darsano waa sii shaqeynaynaa ugu yaraan maxaa sawran ka bixi karna meesha meesha ugu dasaan maya miskad dowlad kale ma jirta waa farmaajo miskad jooga macnaha maxuu ku jooga farmaajo wadkeenda aflagal framework maxaa sharciyada ku jooga meesha miska dhex fadhiya guri dableeyahay miyaa umalaysaa filo soomaaliya umalaysaa laakiin haddii la yidhaha xukuumad wadaaga la dhisayo mucaaradkuna qaybtooda laga siiyo lagu qanciyo si loo gaaro doorasho qof iyo coda waxaasi wax ka jira ma jiraan soomaaliyana waxay u baahan tahay dastuurkaas yarka ahaa loogu talagalay in lagu waardiyeyo qodobka 60aad wuxuu qabaa golaha shacbigu waa 1 term qodobka 92 in yaa umaleeya madaxweynuhu waa 1 term waana 4 sanadood hadday dhamaatana waa inay baxaan waana in kuwa kale la soo doorto saasaa nabadda ku jirtaa mid iska joogi karana ma jiro marka waxaas badan baxay way ugu dambeyn marka rasaaro noocee ah asleeda Soomaaliya waqtigan uu ku haboon yahay soo ugu dambeysay dabcan hadee ra'iisul wasaare fiican horta lama arkayo sababta way tahay waxaa la rabaa ra'iisul wasaare fiican qofkii soo dooran in marka hore la helo maahano marka hore qofkii soo dooranayo ra'iisul wasaare fiican in la helo loo baahan marka qofkii ma hayno marka waxaan sugaynaa mid adigu iska macmalaho iska wax weyn aan soo kordhino dhibaatada inay sii kororto maadaama asal ahaan meeshaba lama ogola dad wax yaqaan ama kartile ama wax qaban kara lama rabe yaa aniga ila shaqeynaa yaa aniga ii guurudeynaa yaa aniga ila sacbinaa yaa iga hor imaanayn yaa wixiiga ii fulihaayo wax saasa le camalaa la raadaasaan qiyaasayo nuugi hadda lama dhahayo yaa kartile yaa waxaan fahmi kara yaa fikir abuuri kara yaa shaqadan qaban kara yaa yeeli kara dhibaatada yaa ka saari kara in la dhahayo hadda mataqaanaa uma malaynayo ay isaga badan tahay wax uun adigu u eg yaa aniga dhegeysanaayo yaa aniga taada iga dhegeysanaayo wax saas oo iska masaakiin camal waaye wax hadda uma malaynayo hadda wax oo khayro dhaama in la keenaayo khayra naftigiisu wax hadda faa'iido loo qabaayo ma jirta laakiin adigu boola xoofteen iyo waxbuu iskala lahaayo saasoo ugu yaraan wuxuu rabo waa dhihi karin marka ma naqaan haddii khayroo kala soo helayaan iyo hadday khayraba ay dhihi doonaan alla khayreyn yaa loo soo celiyay inay dhihi doonaan ma kala aqaan laakiin kulli wax weyn oo hadda laga filana meeshaan ma jiraan